qisadani waa dhab waxaana inala wadaagay gabar ku nool magaalada Muqdisho waxayna qormadeeda ku bilowday sida tan magacaygu waa Janna waxaan ku dhashay magaalada Beledweyne yaraanteedii waan necbanaa jacaylka sababtoo ah fikrad xun ayaan ka aaminsanaa waayo waxa jirtay bay tiri gabar aan jeclaa jooggeeda oo ahayd gabar iga weyn laakiin sheekadeeda ayaan aad u jeclaa walow aan aniga yaraa haddana agteeda farxad ayaan ku qabay bay tiri iyaduna mar walba sirteeda ayay ii sheegan jirtay maalin maalmaha kamid ah ayay si kadis igu timid bay tiri iyada oo aad u faraxsan waxayna igu tiri wiil ayaan jeclaaday kadibna waa kuma ayaan ku iri waxayna ii sheegtay inuu yahay wiil iyada walaalkeed saaxiibo ay ahaayeen waan ku farxay runtii muddo kadibna waxay ii sheegtay bay tiri inay rabto inay la kulanto wiilkii xiriirka jacayl uu dhexmaray iyadoo ii sheegtay bay tiri inaysan xaafadooda kula kulmi karin cabsi ay ka qabto waalidkeed aawadeed laakiin waxaan ku kulmaynaa bay tiri guriga walaashiis oo aan sidaa inooga fogeyn waa hagaag ayaan ku idhi sidaa ayaana ku kala tagnay bay tiri waxay aaday gabadhii halkii uu joogay wiilkii ay jeclayd walow ay gabadhu aad uga walwalsaneyd inay guri islaameed wiil kula kulanto waxaa arintaasi aad u sii adkeeyay bay tiri markii gabadhii ay islahayd wahel bay ku noqon doontaa ay guriga sare kaga xirtay una qooshay dabino qatartooda leh way walwashay waxayna wiilkii ku tiri maxaa dhacay oo ay guriga u qufushay walaasha balse wuxuu ugu jawaabay waa caadi ee isdaji iyo erayo ayaan jeclaysan kolkaasay gabadhii naxday fajac iyo filawaa ayayna arintaasi ku noqotay iyadoo ku tiri war maxaad ku hadlaysaa kadib ayuu bilaabay bay tiri wiilkii inuu cabsi geliyo laakiin gabadhii oo yaaban ayaa go'aansatay in aysan isdhiibin wayna la dagaashay wiilkii khaylo badan kadibna waxaa isku soo baxay dadkii xaafadda waxaana dhacday bay tiri inay guriga soo jabshaan kadibna gabadhii oo go'aansatay inay sharafteeda badbaadsato ayaa ka sheekaysay siday wax u dhaceen halkaas ayayna ku badbaadsatay sharafteedii maadaama ay ahayd gabar wanaag iyo xushmad badan looga hayay magaalada markii ay ii sheegtay runtii waan ka naxay bay tiri waana nacay jacaylka anigoo go'aansaday bay tiri in aan aad uga saso ugana fogaado xayndaabka jacaylka laakiin da'daydu markay soo gaartay 15 sano maxaa iska bedelay xaalkayga habeenkii ay ii dhalanaysay 15 sano waxay ahayd bay tiri habeen iiga duwan habeenadii hore waayo waxaan ku riyooday bay tiri riyo macaan taasoo ku saabsaneyd wiil aad iyo aad ii jecel laakiin aanan arkin wajigiisa waayo caad ayaa iga saarnaa waxaan wada fadhinay bay tiri xeebta agteeda aadna wuu iigu dhawaa wuxuu iiga sheekeynayay bay tiri jacaylka uu ii qabo waqti qurux badanna waynu wada qaadanay aragiisu wuxuu ii ahaa bay tiri farxad agjoogkiisana xasilooni ayaan ka dareemayay ma aanan garanayn bay tiri waxa aan samaynayo sida ay tahayna waan ku qanacsanaa bay tiri hadalkiisa kadibna waxaa si kadisa hurdada iga kicisa bay tiri walaashay iguna dhaxday bay tiri hurdada ka kaca duka salaada oo isku diyaari iskuulka halkaas ayayna riyadeedii qabyo ku noqotay maalinkii oo dhan waan yaabanaa bay tiri laakiin walaashay way fahamtay wayna ii soo dhawaatay waxayna igu tiri bay tiri Janna maxaa ka qaldan maanta waxaan ugu jawaabay bay tiri abaayo maalintaydu ma wacno maanta waxay igu tiri bay tiri maxaa dhacay waxaana ku dhahay bay tiri xalay waan riyooday waliba waxaan ku riyooday bay tiri qof aan arkayn wajigiisa laakiin aad ii jecel markaas ayay igu qosashay bay tiri waxayna igu tiri iska ilow riyooyinku waa been hurdada ayuunba lagu maceeyaa waana ka qaatay bay tiri oo waan ka ajiibay hadalka ay walaashay igu tiri riyadiina waan iska ilaaway markaan iskuulka ka baxay waxaan aadan bay tiri madrasad diini ah oo aan ka baranayay culuumta shareecada islaamka markii aan iyadana ka soo baxay waxaan dib ugu laabtay bay tiri guriga waxaana waqti la qaatay hooyaday kadibna gabalkii ayaa dhacay bay tiri anigoo daalan ayaana iska seexday balse waxaan maqlay bay tiri cod waliba idhahayo lagama yaabo inaad ilowdo run ayaan u qaatay oo qolka in lagu jiro ayaan aaminay markii aan soo kacay aan halka shiday qofna waan waayay bay tiri kadibna salaad sunna ah ayaan iska dukaday waana seexday waxaan ku riyooday bay tiri isla qofkii wuxuuna igu dhahay bay tiri Janna waan ogahay waxa dareemaysaa baqdin laakiin ha murugoon anigu waxaan ahay jacaylkaaga dadka oo dhan yeysan aaminin laakiin adugu aamin
waan ku jeclahay waxaana kuula socdaa sida hooska oo kale balse adiga ima aragtid aniga oo yaaban ayuu igu yiri hubaal waad fakiraysaa laakiin isdeji anigu waxaan ahay jacaylkaaga dhabta ah walwal la'aan ayaana farxad u wada qaadanay sidii oo kale waaga ayaa baryay abaayo ayaana iga kicisay isla sidii oo kale waxaan arinkayga u sheegtay bay tiri walaashay laakiin waxay igu tiri waa been ee iska ilow hadalka walaashayna niyad jab ayaan ka qaaday bay tiri markaa kadibna waxaan go'aansaday bay tiri inaan ka qarsado riyooyinkayga habeen walba oo aan arkana waxaa sii siyaaday jiray bay tiri jacaylka aan u qabo xiriirkaygii riyada markuu socday muddo 1 sano ah waxaa naftayda ay weydiisay bay tiri su'aalo badan oo ay ka mid tahay miyaad waalan tahay magaciis wiilka sidaan oo dhan naftaada ula falgalay ma bini aadam baa mise waa jin maxaa ka qaldan naftaada xakamee aniga oo yaaban ayaa waxaan go'aan ku gaaray bay tiri dhammaan su'aalahaas oo dhan inaan isaga weydiiyo markii la gaaray xilligii jiifka misana aan seexday kolkii aan rabay bay tiri inaan su'aalo weydiiyo ayaan arkay bay tiri isaga oo murugaysan waa naxay waxaana ku dhahay bay tiri maxaa ka qaldan oo aad la murugoonaysa wuxuuna igu yiri bay tiri adiga ayaa iga ilmaysiinaya bay tiri sababtoo ah naftaada waxay ku weydiinaysaa su'aalo badan oo aadan hayn jawaabahooda walaashana way ku beenaysanaysaa adiguna waad jeceshahay waxaan ku dhahay bay tiri iiga jawaab su'aalaha iga dhex guuxaya wuxuuna igu yiri bay tiri sanadka cusub ayaan kaaga jawaabi doonaa ee 2017 waan ka ogolaaday bay tiri waxaana isaga sii noolaa riyooyinkayga wuxuu waqtiga iskuraba waxaa la gaaray bay tiri sanadkii 2017 waxayna ahayd bay tiri habeen cajiib badan wuxuuna igu yiri bay tiri caawa kuma aamusinayo hadal intaad rabto aniga oo murugoonaya misana ka baqaya inuu jin noqdo ayaan ku iri bay tiri kuma tahay adigu jin mase insi wuu igu qoslay bay tiri wuxuuna igu yiri waxaan ahay ibnu aadan adiga oo kale ah waxaana ahay shakhsi dunida kugula nool waliba aad isku dhalasho tihiin iyadoo ka sheekeynaysa arinkaana waxa ay tiri laakiin wuxuu igu dhahay maalin walba inaad aragto waan ogahay waadnii aragtaa maalin walbana sheekadeyda waad maqashaa waxaad kaloo maqashaa dad aniga iga sheekay haddana ima dareemaysid inaan ahay lamaanahaaga inta markuu yiri waxaan ku iri bay tiri magacaa wuxuuna iigu jawaabay Abuubakar waxaan ku iri bay tiri maxaad iiga baahan tahay oo aad riyada iigu diidan tahay iga tag mar dambana riyadaada ha i tusin wuxuu igu yiri bay tiri mar kale ma ku dhibaayo riyadaadana waan ka dhex baxayaa laakiin waxaan ogahay inaad itabayso xaalku sidaa ahaadaba aniga habeenkii dambe riyo kuma aanan arag bay tiri xitaa codkiisa maanan maqal laakiin waxaan dareemay murugo badan iyo walwal waayo waxaan u bartay bay tiri sheekadiisa iyo agjoogiisa sida oo ay tahayna aniga ayaa iska buriyay bay tiri habeenkii oo dhan wuxuu igu dhamaaday bay tiri murugo laakiin waxaan muujinayay adkaysi waagi ayaana ii baryay bay tiri aniga oo daal fara badan ihaayo walow aan aniga subaxaasi lahaa bay tiri imtixaan laakiin maxaan imtixaan galaa bay tiri niyadba uma hayne markii aan tagay iskuulkii anigoo aad u walwalsan ayaan maqlay bay tiri codkiisa waliba isagoo ay leh walwalin hana ooyin kaliya qosol una dhoola caday nolosha wax walba way hagaagayaan marka ayaan ku iri bay tiri maxaa hagaagaya intaan adiga ka fikirayay imtixaankayga ayaan ku seegay wuxuuna igu yiri bay tiri igu kalsoonaaw adiga ayaa ku guuleysan doona okay ayaana ku dhahay bay tiri aniga oo muujinaya dhiiranaan ayaana galay bay tiri imtixaankii markii aan ka soo baxay iskuulka aniga oo faraxsan ayaa gurigayga imaaday bay tiri waliba maalinka waxaan bilaabay bay tiri buug aan ku qoray xasuusteeda kaasoo aan u baxshay bay tiri riyadii macaaneyd halkee bay ku dhamaan maalinka wixii ka dambeeyay waxa noqday bay tiri mucaashaq waayo anigu ma lahayn maskaxan isaga ahayn qalbi aan isaga ahayn waxa la gaaray bay tiri xilligii natiijada waxaana noqday qofka kaliya ee kaalinta koowaad galay macallimiinta oo dhan waxay isu'aalayeen sidee baad uga jawaabtay su'aalahan adag xilliga wixii ka dambeeyana waxaan go'aansaday bay tiri inaan si dhab ah u jeclaado wiilkaas waliba si waali ah jacaylkeenuna wuxuu ahaa mid la yaab ah bay tiri anigoo aan garanayn wajigiisa waxaan go'aansaday bay tiri inaan isticmaalo aaladda Facebooka si aan uga raadiyo isaga waxaan in badan qoray bay tiri magaciisa xitaa buugaagteeda waxaan ku qoray bay tiri ereyga Master A asxaabteeda dhexdoodana ereygaasi caan ayuu ka noqday marar badanna way weydiiyeen bay tiri waxaan ula jeedo Master A laakiin waa
xarafka bilowga u ah jacaylkayga bay tiri. Facebookga markaan ka raadsay laakiin dad badan ayaa ii soo baxay bay tiri, mid uu yahayna waan ka garan waayay. Fakir iyo amakaag ayaana iga soo haray bay tiri, balse habeenkii markaan seexday ayaan riyada ku arkay bay tiri, aniga oo xanaaqsan ayaana ku iri kuma tahay adigu riyadaba waad igu jeceshahay, runta maxaad uga dhuumanaysaa, maxaad wajigaaga iiga qarinaysaa? Wuxuuna igu yiri bay tiri ilaa iyo intee ayaad i jeceshahay? Waxaan ugu jawaabay bay tiri ilaa iyo 90%, waayo 100% waxaan jeclahay bay tiri Allah iyo rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam, 99% waxaan jeclahay waalidkayga. Kadib wuxuu igu yiri bay tiri waad saxan tahay ee ilaa iyo intee baad igu kalsoon tahay? Waxaan ku iri bay tiri xad la'aan ayaan kuugu kalsoonahay. Kadibna wuxuu igu yiri bay tiri indhaha xir si aad ii aragto. Indhaha ayaan isku qabtay bay tiri, wuxuuna igu yiri waxa la gaaray waqtigii aad arki lahayd wajigayga, maadaama aad in badan ii samirtay, waliba aad igu kalsoon tahay misna aad i jeclaatay. Haddana indhaha fur, waliba wajigayga si fiican u fiiri, hubaal waad igu sii waalan doontaa. Markii aan indhaha kala furay misna aan arkay wajigiisa ayaan ilmeeyay oo aan aamini waayay. Waxaan dareemay xanuun dhanka qalbiga ah bay tiri, daal dhanka maskaxda ah, hadalkii oo dhanna waan kari waayay, indhihiina ilmada ayay joojin waayeen bay tiri. Waxaana go'aansaday bay tiri in aan ka agdheeraado agtiisa, laakiin wuxuu igu dhahay bay tiri Janna maxaad la ooyeysaa? Waxaa la rabay inaad faraxdo maadaama aad jacaylkaagii aragtay. Waxaan ku dhahay bay tiri marna maan ogeyn qofka aan dunida ugu jeclaa inaad adiga tahay. Wuxuu igu dhahay Janna mid ma kuu sheegaa? Ha ayaan ku iri. Wuxuu igu dhahay bay tiri guulaysto walba oo caana dhib ayuu soo maray, aniga iyo adigana riyada waan isku jecelnahay, laakiin runta ma isku dhaqanno, waayo waxaynu nahay laba qofood oo kala fog oo dalal kala dheer ku kala nool, haddana lamaana ayaynu nahay, waanu isjecelnahay. Ugu dambeyn waxaan ogaaday bay tiri cidda uu yahay Abubakar, laakiin waxaa run ah in aan nafsadayda ka jeclahay, waayo waxaan ahay bay tiri qof la nool riyadiisa. Waxaan go'aansaday bay tiri riyada sidaan ugu hantiyay inaan runtana ugu hantiyo, laakiin waa qof madax adag oo ima fahmaya bay tiri. dhowr mar ayaan isku dayay bay tiri inaan la xiriiro oo aan fariimo u diro, laakiin kama helin jawaabo. Xitaa waan raadshaa bay tiri qofku maalin la istaago. Waxaan bartay bay tiri walaalihiis, laakiin dhalanteed iyo waxaan jirin bay ka soo qaadeen markaan uga sheekeeyay jacaylkayga. Waxa xitaa intaan ku jiray raadintiisa isoo doontay bay tiri rag badan, laakiin waan iska diiday. kaliya waxa ii muuqda bay tiri jacaylkayga riyada ka bilowday oo aanan ogeyn halka uu ii hogaamin doono. weligay hal mar ayaan isku helnay bay tiri social media, wuxuuna igu dhahay doole cadee weligaa waad guulaysanaysaa. waxaana dhex maquranayaa bay tiri mawjado jacayl oo aan la ii ogeyn. waxaan go'aansaday bay tiri inaan iska ilaawo, laakiin waan ilaawi waayay suuradiisa iyo halkuu ku nool yahay. wuxuu dhex degay bay tiri maskaxdayda, qalbigayga, shakhsiyadayduna waxay noqotay bay tiri xasuustiisa. waxaa noqday bay tiri naf la nool hooskiisa iyo xasuustiisa. waan ilaabi kari waaye bay tiri inta uu ila jooga ayaana dareemaa hurdo macaan. ugu dambeyn waxaa noqday bay tiri qof aragiisa raadiyo, waayo maalin aan arkin maalin iima aha. waxaan sugaa bay tiri gobolka intuu ka dhaco si aan isaga riyada ugu arko. maalin walba waan raadiya, haddana kama caajisa raadintiisa. maalinkii oo dhanna waan murugaysanahay, waayo wehelkayga wuu iga fog yahay. habeenkiina waan faraxsanahay, wehelkayga ayaan haystaa bay tiri. haddaba mar aan weydiiyey arrintani markii la maqlo inay adag tahay inay dad badani aaminaan dhab ahaanshiyaheeda, ayna suurtagal tahay inay ka soo qaadaan sheeko iska caadi ah, ayaa waxa ay iigu jawaabtay laakiin walaal tani sheeko maahan ee waa qisada dhabtahay aniga igu dhacday. waana qofka kaliya aan dunida ugu jeclaaday, qofka aan riyada ku arkay, laakiin dhammaadkeeda ma sheegi kara halkay la dhammayn doonto. ma waxay ii keeni doontaa qabrigayga, mase waxay keeni doontaa guriga arooskayga? aniga ma aqaano midaas.